لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وقليله ترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وسلك السعداء من أمتي على نهج القويم وضل عنه الأشقياء وبعد يا walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh na iskugu kaaya keenay halka kan ilaahay gurihiisa guri ka mid ah aanu iskugu nimaano waa towfiiq ilaahay xaggiis ka ahaatay weeye ummad badan oo muslimiin ayaan u helin fursado inay ilaahay masaajidiisa tagaan oo ay ku ictikaafaan oo ay ka faa'iidaystaan oo ilaahay ay ku xusaan ilaahay hadduu annaga noo suurtageliyey inaanu nasiib ka qaadano qadarka yare adduunka kan aan joogno nicma min allahi weeye towfiiq min allah hidaaya min allah ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmo uuna waafajiyey weeye ilaahay nicmada uu noo galay lama soo koobi karo ilaahay baana le wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha axad tirin karaa ma jiro haddaad tirisii ma koobi kartiin ilaahay cabsidiisa ayaa isfaraynaa walaalayaal sida laga rabo qofka muslimka ah waxa weeyaan markasta ilaahay tabaaraka wa tacaala cabsidiisa inuu dul joogo oo xadri uu ku sugan yahay cabsidu is-ilaalin weeye inaad jirkaaga oo dhan ilaalisid xibnahaaga oo dhan ilaalisid ayay kaa rabtaa intaa dabadeed waxaanu jecelnahay maanta walaalayaal inaan isku baraarujinno jaarka xaqa uu leeyahay dadka deriska xuquuqda ay isku leeyihiin xuquuquljaar deriska iyo xuquuqdiisa iyo ahamiyada ay leedahay shareecada dhexdeeda ay ku leedahay sida nebigu ihtimaamka uu siiyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sida ummadda ugu booriyey inay ilaaliyaan xuquuqdaas ilaahay wuxuuna leeyahay tabaaraka wa tacaala wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalidayni ixsaana wabidi lqurba walyataama walmasaakiin waljaari di lqurba waljaari ljunub wasaaxibi biljanbi wabni sabiil wamaa malakat aymaanukum ilaahay tabaaraka wa tacaala caabud ayaa ilaahayna leeyahay ana u shariig yeelina ilaahay wax alla wadaajinina wax aa la wadaajisiin mid yar iyo mid weyn ka fogaada sidoo kale dadka waalidiintaana ixsaan iyo samafal u sameeya wabilwaalidayni ixsaana inaa mar kasta aa ixsaan u muujisid waalidiinta xayan wamayitan hadday dhintaan iyo hadday nool yihiinba labadaba way kaa rabaan ixsaankii haddii adduunka la joogo iska macruuf laakiin hadday dhintaanna waa inaa baari sidii u tahay mar kasta aa ilaahay tabaaraka wa tacaala istikfaar u weydiisaa u ducaysaa dadkii ay jeclaayeen xiriirisaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii inta u yimid yidhi labadaydii waalid ayaa dhintay shay aan ku xiriiriyo baaqi ma yaha nebigu wuxuu yidhi haa waad u samifalaysaa waad u ducaynaysaa istikfaar baa u weydiinaysaa ilaahu u dhaaf ayaa leedahay labadeedii waalid sidoo kale ballankii ay ka tageen ayaa fulinaysaa waxay kaala dardaarmeen hadday jireen waxaa xiriirinaysaa dadkii ayagu ay xiriirin jireen waa inaysa oran cidda qof baan ku lahaa qofkiina waa ka bax sida ayuu nebigu tawjiihiyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wabidilqurbaa ilaahay leeyahay qofka qaraabadaana ixsaan u sameeya qaraabada dadka ah laba shayba risaqana way siyaadiyaan qofka hadduu sameeyo cumrigana waa ay dheereeyaan ummaddu maanta waxay raadinayaan qof waliba in cumrigiisu dheeraado uu jecelya inuu risiq waasic helana waa jecelya ee ummadda uu ka kaaftoomo su-aasheeda dayiqa nolosha uu mid waasica uga baxo laakiin nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh man axaba an yusada lahu fii risqih
qofkii jecel in risqiisa loo waasiciyo cimrigiisana loo dibdhigo falyasil raximah ayuu yidhi xabiibku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. qaraabadaa xariiriyo, qaraabadoo xariirisid labadaas shay oo cajiibka ayaa ku helay oo ah kow horta in cimrigaagu kuu dheeraado, ilaahay cimriga kuu barakeeyo. marka xigtana risqu waasic kuu noqdo, ummaddu aroortii bay yaacaan, habeenkiina soo hayda waxay u yaacayaan risqi raadin wey. qof waliba waxa u ordaayo u sacyinaya, laakiin haddaaun qaraabada xariirisid ilaahay uu ku waasicinayo tabaaraka wa tacaala. wabidil qurbaa ilaahayna leeyahy qaraabada qofka u saaxiibkaana u ixsaan sameeye, sidoo kale agoommaha u ixsaan sameeye. waljaari dilqurbaa deriska qaraabada deriska riwaaya waxay tilmaantay aljawaaru halaatha wajaaru lahu halaathatu xuquuq: xaqu ljawaar, xaqu lqaraaba, wa xaqu lislaam. derisku saddex weeye ayuuna leeyahay xabiibku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. deris wuxuu iska leeyahay saddex xaq, derisna wuxuu iska leeyahay laba xaq, derisna wuxuu leeyahay xaq waaxid. wajaaru lahu xaqaan: xaqu lqaraabati wa xaqu lislaam. midka koobaad oo saddexda leh qof muslima weeye, qaraabana kula ah, derisna kula ah. xaqii islaamnimada waa lagaa rabaa, xaqii deriskana waa lagaa rabaa, xaqii qaraabadanidana waa lagaa rabaa. midna laba xuquuq ayuu iska leeyahay. waa qof muslin ah, derisna kula ah wey. kii derisnimada iyo kii islaamku kugu lahaa waa lagaa rabaa. qofka saddexaad xaqun waaxid ayuu leeyahay, wahuwa almushrik min ahli lkitaab. waa qof gaal ah, ahlukitaabka, derisna kula ah. qofkaas xaqa uu kugu leeyahay waa xaqi derisnimada ilaa ilaalisid ayaa lagaa rabaa. lidaa darteed ilaahay wuxuu leeyahy waljaari dilqurba waljaari ljunubi wasaaxibi biljanbi wabni sabiil. sidoo kale deriska fogna asna ixsaan u samee. qofka deriska laakiin biljanbi saaxibka kulaha dhinac saaxiibkaana asna ixsaan u samee. asna xaaska waa lagu sheegay, sidiiqa kitaabka isla raacaysanaysiin waa lagu sheegay, saxaabta dadka aad tihiin ama ganacsain ka dhexeey ama si kale u saaxiibe waa lagu sheegay. idan ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa amar xaggiisa ka yimid nagu amraya inaan jaarka wanaajino o ixsaan u sameyno. nebigu salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh markuu ka hadlayay deriska iyo ahmiyadiisa, xadiis imaamu tirmidi uu wariyey, wuxuu leeyahay nebigu khayru lasxaabi cinda allahi khayruhum lisaaxibi wa khayru ljiiraani cinda allahi khayruhum lijaarih. saa ayuu leeyahay. asxaab waxa u khayr badan midka ilaahay agtiis tabaaraka wa tacaala, waxa ugu khayr badan midka saaxibkiisa u khayr badan. qofka saaxibka la ah u wanaagsan, u jilicsan, u dhimriya, kaa weeye. khayru ljiiraani cinda allaahi khayruhum lijaarih. derisna ilaahay agtiis tabaaraka wa tacaala waxaa ugu wanaagsan khayruhum lijaarihi, midka ugu khayr badan qofka deriska la ah. qofka deriska la ah qofka ilaaliya ee xuquuqdiisa ka soo baxa. calaamaat liimaan bay ka mid taha qofku inuu deriskiisa uu wanaajiyo ee uu karaameeyo. man kaana yu'minu biاllaahi walyowmi alaakhir falyukrim jaarah ayuu leeyay nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. qofkii ilaahay rumeeyey maalinta dambe oo qiyaamana rumeeyey, deriska ha karaamey. xadiis dawiila oo dheer ee lagu sheegay sidoo kale martiga in la karaameeyo. lagu sheegay qofku khayra ku hadlo ama ha iska aamus,
إذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره درسك ساكرا كرامة يوكا باهين قابك أو كرامين يسد يا واحد درسك قربه يا أهمية أولاد هاي ولا قورن شريعة ويكورنت نبي صلوات الله وسلامه عليه وكورن أهمية ديسا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه جبريل كموسى سولين إنه إيدر دار ما يدرسك وردرسك 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 ولا إلى أمله يبصره مصلحة على يا درسك يجعل له نصيبا في مال جاري محوية ليا نصيب مصلحة ليا وفق درسك ولا جوارك ملس كل حلا إلى أن كمل يوم سيدا يا جبريل عليه السلام ويقول دردار ما يأيو لي يا نبي رواية كلام لي يا نبي صلوات الله وسلامه عليه أسقط دمرك الله الله يا هنا شيء يكبر أرجينا يا أهمية أيلاد هاي درسكم يا نساء المسلمات قبلها مسلمات كاهو لا تحقرن جارة لجارتها أيولي نبي صلوات الله وسلم قبل درس يسحقرن درس كلا وحقر هذا يكلا كل من ولو فرس نشاط نيف أريا دلاندش يسمع نقط أريا مناف كريدا قوب كذا أما دلاندشاس وحال دهبا هبل لو سو هدي سحقر وحنا مدنا حاجه لا سو دونت مفروضايسنه waxa in la yiraahdo mar ana aqbasha ixtiraamta xuquuqda qofku ilaaliya sida uu وقالوا النبي تلمامي صلوات الله وسلامه عليه درس يوسى كم منع جاره لا يمنع جار جاره درس يوسى درس كيسى كم منع أديد أن يغرس غشية في جاره في جداره قرئ إنه صار تقريه وماشي اسكيكي دقين بلبلو موحد السنة ومجين قد هنا سعودي حقوقي واجب معهم بعلماء كتاجين مذاهب تقريبا كمذا ومنهم مذهبنا الشافعي عليه رحمة الله أي مذهب كمذا نوعي وواجب على كل مركز حقوق في إلى لنا يدرس ومن سعودي دين درس قري كت الله علىنا يا قري كده عيسى أما دربي عيسى صارنا يا في سعودي نبي صلوات الله وسلامه عليه قبر يا الله الشيخ اللي يري إن فلانة صوامة قوامة ولكن تؤذي جيرانها بلسانها قبر ده بل اللي يراده قبر استاق بدن ويه وهمين كيون قيام الليل وتاغن مالنتين الصون وتاغن والله أعرف واوين ولكن تؤذي جيرانها بلسانها لكن درس كيف تعرض ويجرئ ويحمن ويصل ويسكدر لا خير فيها هي من أهل النار يري صلوات الله وسلامه عليه قبدا وح خير أي لا هي ملك بل من أهل النار ضدك النار أهلك وأوي درس دفتي يكون مغلط حقوق الجار وح سهلا معها
ahlu cilmi waxay leeyihiin qofka 40 guri oo iridda hore ka ah iyo 40 ka dambaysa iyo 40 xagga midiga iyo 40 xagga bidaxa intaas daris ah 120 albaab عائشة معاية النبي رضي الله عنها إن لي جارين لبدرس أيان لا يا إلهي رسولك سيو متكيما وحوادي يا قال إلى أقربهما منك بابا أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا هذه ينسى وهذه يد كسي مضن oo xaq ku sii awleysan midka baabka kuugu dhow guriga albaabada kugu soo jeeda kan kuugu dhow tilaab ahaan kaaway imaanina dad korana ay u gudubtid dadka kula dhagana darisnimada ka tagtay xuquuqdii waa qayb ka tagtay Abu Dharr radiyallahu anhu nabi markuu la hadlay muxuu yiri ya Abu Dharr إذا طبقت مرقة فأكثر ماءها هداني ومرق يوحكري سد قلت بيها أبدي وتعاهد جيرانك درسك أنا كلا فاتشو درسك أنا وحكي جارسي أفضل بديه هدا بكري سد أيالي بيها أبدي مرقة بدي معايا المرقة وعقوب بدن كرانا بيها بس هدنا درسك كلا فاتشو درسك كلا جارسي أهمية درسك وليه هاي بنبي نتصايا صلوات الله وسلامه حقوق دي سواح سألني نساعين وحبيبك براروجني صلوات الله وسلامه عليه تنكلم مركو كهل لهينو قفك درسك حماية وحوت المؤمن سأل الإيمان هاي حديث صحيحة والله لا يؤمن أيها النبي والله لا يؤمن والله لا يؤمن صدح شير أيوك علي قيل من يا رسول الله لا يمن كنا أرتين وصر منك وإيمان توسع أن لقيلين مركاسو صدح شير مركو النبي يكون علي ليريا قيل من يا رسول الله قفك سيدا سيكون على واكب من لا يأمن جاره بوائقه إلى النبي صلوات الله وسلامه وقفك درس كيسو سآمن كأهين درس كيسو اللي رانوكو تاتابانينا قولا دي بدن ويه هانوكو تاتابانينا درس كيسو سحقرت كأمنا قف أهل الإيمان كتطلع على عوراتي ويه عورتي سود راعيا عيبتي سوفافينيا قف كستو قف مسلم عيبتي زرع راعنا إلهي ما راعى لي عيبتي إلهي عاد عيبتي زرع راعينا فضحه وإن كان في جوف بيته وفضيحين دور بقريش لحساب كسبنا والاستسراف في بيتي بغير إذنه سيدو كلا إنه كحد قد بها مركز تقريجيسا إذا الآن والنظر إلى أهلي سفيرنا وشراح الحديث ومكة في سيرة المحدثين ونقل كلامي وركي سو قورينا وكم مغلب وددك لو قورينا شرك الرادين احتقاري يا سيدي سوايسيا وخون أمانتي سوقيانا مركز أمانتي سوق وردي الودي بتوا أمانة عرابة دي الودي بتوا أمانة واحد كسو الودي بتوا أمانة وهنا إلى لسيدي كرم إذا قف كستو سيدا السمية عن إلالين درس كحقوق ديسا إيمان كامل ملوي إيمان كامل وفا إيمان لهين حصلف كالوري إنن كم إذا هارق خيارتا هاي ومدي يهور مرتي سلفك يا خير القرون قرني نبي ويري ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قرون صامر تأدون كان كي نبي محمد بابا فضل بدن صلوات الله وسلامه عليه
ثم قرني كل حاجة ثم كان كل حاجة إذا أمة السلف كاللي هذا أمة هلكا كجرتوه هاي ماذا كمديهين صحابة كجرتو تابعين كجران ضدك قيارت نين كم إذا قريجي ساعة كبرتي شرك كتبت سير تسوق قريان أهل التاريخ مركز اللي لو اقتنيت هرا يأكل الفأر هذا كيدا يصلى النية وباشا اللي يرادو بصدق ميان يورتا أو عنته بالك كانوا سوق عرره هو نكسنا له مركز يروح عن كعب سنة إني أخاف أن يهرب الفأر إلى بيوت الجيران فيكون ذلك لهم أذى وعن كبغيا إنه بالك عرره يقولها درس كأوكلا ودي بونه شركة عرره إنه مضرنا الله يبقى قشني وحياة قف كل بسنة هي رايحة ويستجعليني مركز هنا كذب ودي لكن سلف وعسك إلى علم شيرين شير قولي جاي تك عايز درس قولي جيس قالي إنه نبغى النقضاء أساس لو عقاب اللي بويمه كم من جار أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا أغلق بابه دوني ومنع معروفها ما قد درس يا درس كلا كل كان قيامي معول ليه باب كيف يقحرت الباب كيف يقحرت واحد معروفا ما فرجرين ما سو قاسين خير ودني ما فرجرين نقول لك إذا قفك الصوم مسلم ومؤمنا وإلهي إيمان سي تبارك وتعالى أنا لكرم إن الحقوق سيدة أوين أنا دورنا إلى لنا ليس المؤمن أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه من بات شبعانا وجاره جائع مؤمن ما انقف وابريستي اسو دركسن دبو سكوين لكن درس كيسو جائع يهي غاشويا مؤمن ما كان هدو مؤمن يهينا يعني ناقص وي ايمان كيسو ايمان كامل ما لقفك وعلى ربا حرق انه ليه قفك المسلمين تامر كود قفك اهتمامنا كغبن النبي تلمامي إنه سنجمد هين هذه النبي سهين صلوات الله وسلامه وضم المسلمين الضجال كالو سين أضو أبني استقرار كنا شاي وضم أدو الجريرة كل فتين كوا ضبيرة كعسيين كوا حروب أهلية كالسعداء إذا وحك استوى هذه هاي ستين النعمة قفك أي كم غيين وأنا أدو عيسى إلهي إنه قربتها كقاضو سايا إيمانك أو كامل كنا عنك إيمانكاو سيدا أيو كامل كون أنكر نبي مركو كان لا حقوق الجار كويس كل يهين أتذرون ما حق الجار أيوه ولما قرأنا يسين درس كحق ويسكول يهي ودرس كلا كل إذا استعان بك أعنت أدو كاكا المضم بو وكالمك ويديستورت هنا أو كالمة يسدويه وإذا استقرضك أقرضته هدو قرضك ويديسته أو أماهنك ويديستن وين أماهيسا أيا كان العقل هاتيا راشن هاتيا بدعاء هاتيا أري الإسماعيلية هاتيا 40 خصلا لكم مركورا وحيالها خير كمعين وأيوه سيسو أفرتن قصلود ريل الإسماعيلية وهو سيسو معناه ريل الإسماعيلية وعوي هنا الرمركة إذا شو ناف عنا لا عد سيسد أنت نافك عنها ليه سو استعمالان قف ما من عامل بيرنه وأفرتن كقصل قف عمل فلو كشق يا مجر إلا إلهي جنة أيوه لي تبارك وتعالى يعني إذا استعان بك أعنته هدو كلمك ويديستا أو كلمة
hadduu amaahin ku weydiistiyo daynna u kaalmee oo amaahin bal sadaqada waa ka fadli badan tahay ogow inagu tilmaamay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh amiinkii la dheelmiyey abwaabta jannada waa kii ku arkayna asadaqa toona u qornayd dayntii amaahintana 18 8 iyo 10 u qornayd de isku joogaan waa arkaysa wa in iftaqara jutta calayh hadduu wax u baahdana waa u gargaartaay waa siinaysa wain asaabahu khayrun hana'tah haddii khayr asiibana waa u tahniyadayni xaqa lagu leeyahay saa wey ee maahan qofku markuu khayr ku dhaco walaalkaaye muslimkaaye ahlu tawxiidka inaa ka xumaatid taas waa caadatu lkufaar wey ilaahay muxuu leeyay in tamsaskum xasanatun tasu'hum wain tusibkum sayi'atun yafraxuu biha haddii waxa guula aa gaartay way ka xumaanayaan xumaan ha ka naxayn haddii masiiba in ku dhacdana oo guurdar iyo duulaamada layn ku jabiyana waa kugu farxa qof kastoo sidaas sameeya waddadoodii buu hayaa tii qur-aanku 1400 sano ka hor kadib uu hayaa ilaa qiyaami saacana uu ka digay in asaabahu khayrun hana'at wain asaabatu musiibatun cazaytah haddii musiiba ay ku dhacdo qofka muslimkaana inaa u tacsiyeysid korontadu haddii falaadkiisa ka maqan tahay adna iskaga kaa joogto u tacsiye laanna hiya masiiba kama akhbara nabiyu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh hamiin waa garanaysa si riwaayin ku yimi fawniistu nabiguna ka dantay siraajka inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ayuu yihi nabi markaasaa la weydiiyo yihi ahiya qiila ahiya musiiba yaa rasuula allah ma musiiba shay kastoo qofka muuminkaa dhiba musiibo ayuu yihi nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu idan xuquuqda uu kugu leeyahay qofka dariskaa ee walaalkaaya waxaa ka mid a haddii wax ku dhacaan inaad ka tacsiyeysid geeriya u weyn iyo waxa ka hooseeya qof muslin oo qof muslim u tacsiyeeyey ma jira ayuu yihi nabigu markuu ka hadlay ilaa ilaahay bilada karaamo ayuu ku karaameeyaa maalinta qiyaame la joogo wa in maridta cudtah hadduu jiradana waa booqataa booqo nabigu wiil yahuudiya oo daris la ah ayuu booqo huwa yahuudi acdaa lislaam ah acdaa diin ah dadkii ku abaabin jiray ilmahooda ah tay ilmuhu markuu soo kacaan waxoo wax kala garto bay gaajaysiin jireen le gaajo ka badin jireen waa gaajaysiinaya ilaa ilmuhu saacado dheer markuu boohinta badiyo bay caano macaan loo sonkor la u dhiibayaan saa markuu u dhadhansho waa laga tuurayaa hal mar maxaa la cidda kaa tuurtay ma taqaanaa waa rajul ismuhu muxamed nin muxamed la yidhahdo wey acdaa nebiga ay ku beerayaan idan ninka dadka saas ah nin daris la ahaa baa xanuunsaday nebigu waa booq salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaahay baa le wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin aakhira xayaati laxadaadka u dambeysay weliba booq wuu dhiman rabay nabigu madaxa intuu ka fadhiistay muxuu yihi qul ashhadu an laa ilaaha ila allahu dheh waa ki yihi nabigu wa anii rasuulu llah markaasuu aabihiisoo ag fadhiyey ka baqay oo uu fiiriyey adeec abalqaasim ayuu yidhi aabihiisna war abalqaasim adeec nebiga waaye salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wiilkii sidaa ayuu ku tawxiisay nebiga isagoo wejigiisa birbir nuur ka baxayo ayuu soo baxay oo uu leeyahay alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar ilaahayga naar ka badbaadiyey maxaa yeele saacadka u dambeeyuu ka fikaday wiilkaa naar wain maridta cudta hadduu jirado booqo bal gaal hadduu darisku leeyahay waa inaga ka soo hadalnay xaquu kugu leeyahay xaqa darisnimada wey bal waxaana la ka rabaa inaa ayaga mucaamalo wanaagsan u muujino oo ay ka dhadhansadaan islaamka qofkan waxa uu xambaarsan yahay nuurka tawxiidka ku jira riwaayo kale nabigu bukhaariga markuu ka hadlayo xaqul muslimi cala lmuslimi 5 برواية 6 مسلم كمسلم كلا حقه وكل ياي شنوي maxaa ka mid ah in haduu booqdo haduu jirado qofku booqatid haduu jirado inaan booqatid
qof muslima booqdaa ma jiro gelinka hore ilaa 70 kun oo malag ayaa ku salinaya wasalaam min almalaa'ikati istighfar wa min allahi rahma ayaa leeyahay min jamaadaat addu'a wa tadarru' al-adamiyya 70 kun oo malag baa gelinka hore hadaa qof jiran booqatid waxay ku leeyihiin ilaahu habal u dhaaf ilaahu fulaan u dhaaf ilaa ka soo galbaysatid hadaa gelinka dambe booqatidna sidoo kale ilaa caawil ihsaan laga gaaro riwaayo kale waxay tilmaantay qof booqdaa ma jiro ilaa malag baa naadinaya ilaahay xaqiis malag baa ka dhawaaqaya wuxuu leeyahay daaba mamshaaka wa tabawwa'ta manzilan min aljanna socodka ugu wanaagsanaaday jannadana boos ayaa ka diyaarsan asaalanta ma qof jirana ku hareeraysan ma mustashfa afar buu nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi qofku ma kulmaan fi yawmin waahid illa dakhala aljanna illa jannada ayuu galaa maalin bisha muharram la sooman yahay 10 laakiin uu yiri yaa maanta sooman Abubakar gacanta taagtay yaa wax sadaqaystay walaw dirhaman walaw shilin baa noqotay Abubakar laftirkiisa gacanta taagay yaa qof jiran booqday maanta Abubakar baa hadana gacanta ku celiyo yiri ana yaa rasuulallah yaa janaasa raacay ana majtama'anna fi imri'in fi yawmin waahid illa dakhala aljanna yiri nabiga salawaatullaahi wa salaam qofku ma kulmaan afartaas maalin gudaheed ilaa janno ayuu galaa waa raadin kartaa اثنين صوم خميس صوم بل بلنا رمضان اللي سوميا ku soo mare waxa ka xigta in aan hal shilin sadaqaysatid isbitaalada ama dadka taqaan ama aqoon abooqatid janaasana hada kun ma bariyo weey dadkan hada tagtay meelaha janaasada yawmiyan janaasa jirta sida masjid nuur iyo masaajid meelaha la midka hada dadku ay wax ku duwaan janaasooyinka lagu tukado qof jirana abooqatid afartaas oo sameeysid baa ka xigta janno ina gashid idan xaqqa jaarku xaqqa kale uu ku leeyahay wa in marita utta haduu jirado ina booqatid adkaarta soo aroortay ku aqriso markaa u tagto sunnada waxa kamid ah qofka inaan lagu daahin qofka mariidka inaan lagu daahin wixii adkaara soo arooray si as'alullah rabbana ashalla ashfiik iyo quraanka wixii ku fudaada ku aqrisid xaalkiisana dadka ay weydiisid see uu yahay ana ka rugmatay sunnadu sida weey sida adoo qalbiga ku haya daa u sameeysidna waa laga sawaabinaya si gooni oo dheeraad laana sunna min sunnati nabiy sallallahu alayhi wasallam wa in mutta wa in mata shayya'ta janazatahu haduu dhintana janaasadiisa ayaa sagoontisaa qof janaasa raaca ma jiro ilaa looga tukado ilaa lahu qiraadaan wa kiir nabi salawaatullaahi wa sallam laba qiraad oo ajra ayuu leeyahay midkooda ugu yar buurta uxud oo kale weeyaan maaragta uxud ilaak wala tastadilu alayhi fil binaa بناءنا كل ديرين فتحجب عنه الريح إلا بإذنه قفك درسك كلاء إنا قريقا قد أفسي سمان أورتا كعرت إلا إذن كيسا أقول سنكرتا قد بين كرتا وينو كي إذنا إنا هو ذا كعرت مان حقوق دجارك كواحد قول ما حرام بها مسواجب وهي مسوا بنانتا لقاها بالماء لكن نتكلم عن حقوق الجار حقوق دجارك أيان كهذا لنا إذا ولا تستديروا في البناء عليه فتحجبوا الريح عن الريح إلا بإذنه ومركار أرتدنا كهرتد من اشتريت فاكهة فأهد له وإن لم تفعل فأدخلها سرا هذه وحفاكهة هذا وقف كانوا يسأودين إلى يوم رزقه وكل دو رزقه وكل دو يقف مهل بوجوجا وحوس أودين هذا سوق قدتين ولا نسين وهدية وحق أنت هذه كلام سر سوق لي هتوسين رواية كجرت ولا يخرج ولدك بها ليقيد ولده ولد كاغي عرورت هذا يلبح وعياله قالي وأضو كوجوني وسوق قدتين سيعنقي سووا دبان عرورتنا سلا عياريا اسكو ميل بي جوغان marka ciyaalka ay qiirada عنقي لك
اسكولك اسكو مدارسته حالة مميزات أساسا والد كان كلمة أولا ولا تؤذي بقطار قدرك أيها حبيبك صلوات الله عليه هكون ابن دريقاق أركيسة رائحة ديسة وحيالا ويسا أودين أكرساني سامالين كستا أصلا ما أودا أركيسة هكون ابن هتوسن ده دعك قارسين إلا أن تغرف له منها إلا إنا وقر فينيس وحكا قارسين يسمع أتذرون ما حق الجار والذي نفس محمد بيده والذي نفسي بيده لا يبلغ حق الجار إلا من عصمه الله سيدا أيها النبي صلوات الله وسلامه إلهي باقود أرت إن درس حقوق درس قف جدًا كرين إلا قف إلهي دورين موي يوم مسلم هي مقدر إسئلال النوع بعن إمام حاكم وحوري أبي هريرة كورشي كتاب كيس مستدرك رضي الله عنه قال إن أبي هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نن أيا النبي قويمد فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملت به دخلت الجنة إلهي رسولك سيو وحايت استاوي إلى عمل هدي أن سميو جنة أن قليو قال النبي كن محسنا هو قم محسنا مركز أهو إحسان عليه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلهي هنا عابد ذا سي إخلاصك عابد ذا سي أصوك أركها يوكله سي أضو أركها يوكله هذا أضو أركي نسقك أركي محسنين إلهي القرآن كمرك هو الرمي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم هذه صفات المحسنين آياتك كوري محسنين تلوش انت عيال ضبدي همينك وحير بك السيحدان وقتك سحورته رابطه استغفار بضلبان الإلهي وتضرعان قفك سائلك وحبي السيان وكا إذا النبي محمد الله صلوات الله وسلامه عليه كن محسنا قال كيف أعلم أني محسن يا رسول الله سيدوك أغانيا محسنين أنا هاي كما ورقبت هذه سيكو أغانيا سل جيرانك أيها النبي درسك أيها درسك ويديه فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء إمام حاكم يوري حديثك درسك أيها ويديه هذا درسك كلها قف وناكسن وي محسن باتهاي هل نبي مركو قال مسلم كي قفك مسلم كا وقفك من سلم المسلمون من لسانه ويده وكيل والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم مسلم واحد اللي هذا قفك عرب كيسة هي قعنتي سلقة أمان هلو كأيا مسلمة هنا أفكا كشيء قتد ومضى لنا أجريسد مدبا وحكوايس تدماهن ناقصاتا قعنت وهنا كعب دساديك قفنا هذا الدليل أيا كان مهير هذا ما هو عرب كان هنا كعب دسواي من الذم الآن عي يهو عن بارسين يوردن إذن هديئة ربطينا محسن نقتد ومن أراد أن يعرف أنه محسن فلينظر إلى حاله مع جيرانه إلى قفك الروائن محسن يعينه أقاده حفيريو بالدرسكي أسوي سيسكويه سلانتي لدي تري أبي لاب سلانتيس المصيبة ضاهي وقرني سين دبكا يكون ينشرتي نبيك صلوات الله وسلام درسنا يا الله حاوية قشم يتقاضي وضد النبي مرة يديك شرت دائما إلهي بقوا مع القرآن كأوجه جوابي مش أيصلك لك تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد والسورة لما نزلت على شأنهم بجودة نار با إلهي وقل يا ويرنك يعني سهل هذا صوته وعي كل عضي مربو ير النبي
سأكون رمية قرآن بعد دقة حديثة يصني معجزات الكاسو دي waxaan ku rumay sheegay orgi arbeel waxa reesnaa waxa ray orgiyaal wuxuu yiri orgigan haduu ku rumeeyo ha ku rumeeyo orgigi waa hal mar rumeeyo nabiga sheegay rasuulka ilaahay ka hadisay markaasuu labada adin ta qabto saa isku dhaafiyay labada jeeni saa isku dhaafiyay hal mar u kala fijiyo tabat yada abi lahab ilaahay ku sheegay maadaama ficilku uu sameeyo gacanaha uu ku qabtay ba gacanihiisa heerkii ku dambeyn doona laga sheekay إذن كفار بكواس عين لكن وحاول ديرين معاملة حن أي لها وهي النبي يدك درس كل رقميين صلوات الله والسلام إذن أحبابنا الكرام وقت أيانا قد عي هنقول سوق بقبين يا إن إلهي عبسيس مركز آن وضع عبسينا لكيلو أمورين ويتوسي يعني حقوق الجارنا وانقرانينا عن ربعنا برارتيوم صفوفته مسجد الجماعة دائما مركز dadku aad u wanaajiyaan miskuna uu buuxa badana suufta aanu ka dadaal nabi sallallahu alayhi wasallam marbu salaada markuu dabcan inuu galo ikaada an yukabbir markuu dabcan uu sigay inuu kibaarto ayuu arkay in xabadku soo taagan yahay ibadallah la tasawunna sufufakum birna sintina aw sintina sufuftina aw la yukhalifuna Allah bayna qulubikum hadika la qulubtina iskhilaafis imam an-nawawi alayhi rahmatullah markuu ka hadlay hadiiskaas وشرح عليه ومضى واحد دخل هاي دحدغاي حسد يا بغض dadkii masaajidka isku tukanay ba xasad iyo karaahiye anaaniye kala dhixi galisa ya ana fiya qabiil ya waxaan fiicnay laajli sunnada laga tagay marka sufuufta ina ilaalina waay oo qofka garabka ku xiga oo safka sino ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka bariyana tawfiiq inuu waafajiyo alu xaq ilaahay naga yeelo xaq inuu soo waxaan ku qowlina leenahay أمني استقرار إلهي مسيو بلادنا إلهي استقرار كديو أمن إلهي سيو ضمانينا إلهي سيو كين يسدوا كلا أمني استقرار يعني بلادنا كبت إلهي وسيو مسلمين إلهي وكرجار إسلامك إلهي قوي ما كسوي جو أهل فلسطين عاصمة مسلمين تقصي إلهي وحوق قوسيو حرمينك إلهي وحفظيو آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.